السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada channelka 3cs shalay waxaan soo sharxaynay DDA algorithm marka example kulmeena soo arag maanta waxaan rabnaa inaynu ka shaqeyno example-ka DDA algorithm say line drawing lagu sameeyaa and example-kana isla arki doonaa marka ka buuxsho wanaagsan example-kana qaadan doono DDA algorithm waxaan lahay haysanaa laba input oo coordinate oo points يعني وحايسنا لaba point haysanaa point A iyo point B inaan isku xirnaa rabnaa soo marka yani soo sharxaynay cashirka horreeyay waxaan dhahnay graafka wuxuu samaysan yahay sidaan waxaan rabnaa inaan sawirno line inaan sawirno rabnaa so line-kan markaan sawirayno meeshaan waxaa ku yaala laba point A oo x1 u taagan iyo point B oo x2 oo point B iyo point A marka point A iyo point B waxaan ka wadnaa awaan doonaa maanta intan waxaa ku jira waxaa la yiraahdaa y1 iyo y2 so connection-ka ka dhaxeeya labadan point meesha iska jarayaan iyo labadan point meesha iska jarayaan dhexdoodaas waxa ku sameysma ayaa waxaa loo yaqaanaa waxaa la yiraahdaa line loo yaqaanaa line-kan hadda sameysmay ayaa waxaa loo yaqaanaa line marka inta waxaa waa point A waaye intan waxaa waa point B waaye so point A waxaa haysanaa x1 iyo x2 waxaa haysanaa x1 iyo y1 point B na waxaa haysanaa x2 y2 marka labada qiimayaashan ay u kala taagan yihiin waxaan rabnaa inaan sawirno pixelska dhex maraya labadaas line leanna line-kan waxaa dhex mari doona meeshan pixel x iyo y meeshan meel walbo x iyo y iska jaraan waxaa loo yaqaanaa pixel so markaan sharaxno waxayna soo sheegnay marka DDA markii la joogo afar qaacida soo sheegnay aan dhahnay midda koowaad haddii slope-keen ka yaraado 1 haddii slope-keen 1 ka yaraado delta x waxay la mid tahay 1 maadaama graafku uu ka yiri 1 x yani waxaa loo kordhi doonaa dhanka y loo kordhi doonaa macnaha graafku wuxuu kordhi doonaa dhanka y kor u socon doonaa x mar walba waxay la mid tahay 1 la mid waxaa yani markaas waxaa soo sheegnay waxaa slope-keena ka xisaabinaynaa waxaa ka xisaabinaynaa y sub k plus 1 waxay la mid tahay oo next decision-ka waxay la mid tahay y sub k-da aan haysano oo initial decision-ka oo y sub k-dan 3 and this y sub k waaye and this x sub k y sub k-diina oo lagu daray slope-keena wixii noo soo baxo so marka waxaa leenahay slope waxaa lagu helaa delta y divided by delta x delta y meeqa waaye delta y waxa waaye y2 minus y1 delta x na waxa waaye x2 minus x1 waxaa lagu helaa yani y2 minus y1 x2 minus x1 so y2 this is y2 watana y2 and this is y1 so 8 minus waxaa leenahay 3 divided by 12 minus 2 oo la mid tahay 5 divided by 10 which equal to 0.5 macnaheedu tan waxaa ka wadnaa graafkeena markaa sawirayno graafka waa kana this is x ilaa laga gaarayo 2 alif la wadi doonaa x ilaa 2 alif 11 10 ilaa 1 laga bilaabo y-na waxaa la wadi doonaa ilaa 8 meesha ugu dambeysa 8 waaye 8 marka graafkeena ay isjaraan macnaha graafka line-ka inta ka bilaabeynay markuu gaaro 2 alif 8 meeshaas markuu gaaro labada meel meesha iska jaraya markuu gaaro waxaa dhammaan doona line-keen wuxuuna ka bilaabanayaa 2 x oo 2 maraysa meeshan x2 maraysa 2 x2 oo kale inta meeshan x2 x oo 2 maraysa iyo y oo maraysa 3 inta y1 iska leh y2 y3 meeshan oo kale inta kale ka bilaaban doona line-keen meeshan oo ka bilaaban doona marka line-keen ilaa intaas uu soconaya ayaan sawiraynaa marka meeshan pixels ku jira marna x la sawiri doonaa marna y la sawiri doonaa marka yani pixelskaas inaan xisaabinaa rabnaa okay so marka slope-keena waxaa noo soo baxay 0.5 waxaana hore usoo sheegnay waxaa dhahnay qaacidada koowaad haddii slope-keena ka yaraado 1
waxaa isticmaalaynaa delta x inay kula mid tahay 1 yani ileen constantigeeda 1 inay ka bilaabanaysaa leenahay then markaas increasing ku sameynaynaa waxa la xisaabinayna ay tahay y-da qaybta increasing ugu dhacayo y sub k plus n markaad y sub k plus 1 waxaa lagu helaa y sub k kan waa initial decision kii waay kanna waa next decision kii waa go-aankii labaad ee la qaadan lahaa meeshii laga bilaabayay kor markii loo soconaya go-aankii la qaadan lahaa waa so marka waxaa leenahay y sub k plus 1 waxaan kula mid tahay y sub k meeqa haysanaa waxaa haysanaa 3 haysanaa initial decision this is the final decision so initial decision waxaa haysanaa 3 plus waxaa leenahay slope-kii noqon noo soo baxday 0.65 xelinoo la mid tahay 3.5 so marka hadda waxaa sawiranaynaa yantuskii yaa samaysanaynaa yantuski wuxuu ahaay k oo numbers constantigii noo fogeysay x iyo sub k iyo y sub k meesha hadda iska jareen oo iyo ayadoo floating point ayadoo yani float macnaha pointiga laga saaray x point xb iyo yb macnaha roundina lagu sameynaa mar walba oo 3.5 ay soo baxda roundina lagu sameynaa initial decisionka muxuu yahay koodura waa 0 x sub k iyo y sub k initial decisionkooda waa 2.3 intan waxay noqonaya 2.3 so go-aanka anaga qaadayna waa kana y sub k x sub k marka loo baahanayo marka waxaa noo soo baxday 2, maadaama extend enolol tahay maxaa la yidhahdaa x delta x waxay kula mid tahay lagu dhahay 1 kula mid tahay mar walba 1 ku dareynaa waxaa leenahay 3 ee noqonay meesha wax la xisaaba slope laga xisaaba waa 3.5 u dar marka noqonay 3.5 marka roundina lagu sameynaa marka meesha markii la sawirayo wax floating point ah laguma sawiro maxaa la yidhahdaa line waxaa leenahay 3.4 okay next decision ada samey oo go-aanka kale go-aan kale muxuu noqonaa y sub k waxaa lagu helaa y sub k plus 1 waxaa lagu helaa x y sub k diina meeqa noo soo baxday y sub k waxaa noo soo baxay 3.5 oo lagu daray slope-keena meeqa waa slope-keena 0.5 le waa mar walba 0.5 u dar waxay la mid tahay maxaa la yidhahdaa 0.5 waxay la mid tahay 4 ay la mid tahay marka meeshan waxay noqonay 4.4 maadaama floating point aysan lahayn meeshan waxay noo noqon doontaa 4.4 waxaan wadi doonaa ilaa laga gaarayo 2.8 maanta markaan gaarno 2.8 wuu dhammaan doonaa drawingka marka abosiinaynaa meeshan waxay noo noqonay 4 0.5 noogu daro so meeshan x waxay mid noqonay 5 intana waxay noo noqonay 4.5 inta waxay noo noqonay 5.5 step shanaad wad inta waxay noqonay 6 y-da noqonay x-ta y-dana waxay noqonay 5 inta waxay noqonay 6. so marka stepka lixaad marka noqonayaa inaan dhahno meeshan slope-keena pointi loogu dar 7 this is 7 control 7.5 is 7.6 so marka space-ka nagu yar sidaas darteed ayaan u yeelaynaa meesha waxay noo noqonay 8.6 intana waxay noqonay 8.6 stepka sideedaad waxay noo noqonaysaa waxaa la yidhahdaa 9.6.5 intana noo noqonaysaa 9.7 sagaal waxay noqonaya 10.8 7.7 10.7 tana waxay noo noqonaya 10.7 10.7 inta stepka tobnaad waxay noqonaysaa 11
11,7.5 أنا waxay noqonaya 11,8 stepka tobanaad ay koowaad waxaa noqonaya 2 alif oo 8 dana waxaa noqonaya 2 alif so waa bogsiyan filayaa marka waxaa sameynaya mar walba rounding ku sameynayay oo ah hadii soo baxdo 4.5 hadii soo baxdo waxaa sameynaya 4 hadii soo baxdo 5.6 waxaa sameynaya 6 so isla wuxuu noqonaa marka koowaad initial pointigana waa kana so isla markii 3 lagu daro 3 markii 0.5 lagu daro 3.5 and 4 marka 3.5 kii ay istaadana isla lagu daro 1.5 4 ay kula mid noqonaya 4.4 adoo 4 haysa hadana slope-kaada ku dar twice ilaa kuwad ilaa ay kaaga soo baxdo 2 alif, 8 marka help inay fahantaa filaa